hablihii reer Jarmal ee mayga ku xiiqsanaa mayga ayagu iscaayay naheedhaha meelahan oo kala adeey jiro oo lagu soo nafisay iska tago oo inta awooyiye ka isiriyo odayaal dhintay soo faqi lahaydeen oo caay lahaydeen dee meelahan oo kale in adeer iska yara tago oo ku soo nafisa qaaq maalin dhan ku maqnaada adigoo nafisa bad gurigii imanaysaa markaa sheekan ku xasuustay arrinkan oo doonaya inaan idinka sheekeeyo barigan wadanka Jarmalka ku cusbaa ayaa dumar baan isbaranay dadna dumarka markaan isbaranay ayaa meelahan caruurta yar la geystay ee lagu kulmayo waxaan isku baranay marka de way ogaayeen wadan magaaladan joogana Soomaali maba deganay la hadda Afrikaankana bariga 3 reer oo kaliya deganaa markaas waxay igu yiraahdeen heed maalmaha kamid ah waxay keeneen kaad dabadeedna waxay igu yiraahdeen waadigano wadanka cid kuma haysatid maxay kaligaana waad iska tahay maxay hayday waxaan doonaynaa de inaad kaarkaas maalinta wanaga ku soo casuunay meel been teginaa laga soo casuumay ayaanu adigana ku kaxaynaynaa halkaas in wada tegaynaa de maalin heblaayo soo diyaar garow labada duhurnimo ayaynu baxaynaa halkaas in ku wada qadaynaynaa kadibna ma aragtay casarkoo dhan waa dumar kaliya halkaas in iskaga soo sheekaysanaynaa bisinka dumar kaliya ah waayahay waan idin raacayaayo maalintii marka waxay keenay ilaa 2 week ka hor baa la soo meelahan la soo casmaamo bil ka hor waa maalintii meel baan ku qortay oo diyaar garoobay gurigayga hortiisan sii istaagay xajiga baan ku riday xaj maanta caruurtii waa taas dumarkaasaan raacayaa bal meelahaas tee lagu soo sheekaysanayaa baan waxa ku yiri afkan dee isku kay dhagay ku soo yara kala bixinayaa luuqadana ku soo jajabsanayaa halkii baan tagay dumarkii baanu israacnay maxay hayday meel marka organization oo kala soo qaban qaabiya kulanada sidaas oo kala ah meeshii markaanu tagnay ayaa waxa naloo keenay pizza naloo keenay pizzada marka maxay hayday de pizza margarita oo xalaal ah oo waxba de aan ku jirin oo cuni karto mid wax ku dul saareen mid qof walba tuu rabu doortayo pizzadeedii yaraydee aan marka vegetarianka u arkayay baan ayaan cunay sharaab halkan yaala qof walba wuxuu rabo shubanayaa waa dharagnay markaan walaalayaal saa u dharagnay ee qadadii la dhamaystay ee in yar meeshii lagu qadaynayay la fadhiyay unbaa hool kale meel hool oo kala ah oo aan hool aad u weyn ahayn qol adigu weyn oo fadhi yaalo ayaan baa leeyahay Maria hadaba de fadhigaas lagu nafisay de iska tabteeni oo kale inta halkan lagu qadeeyo ma aragta dana fadhiga la iska fadhiisanayay lagu casariyeynayay oo kale fadhigii baa la fadhiistay haba la fadhiistay daan waxaan mooday markaan keega gani adduunkan tan isla dhacno qof walba wuxuu ka hadli kara ka hadlo dabadeetna la iska qosqoslo de halka sideeni oo kale de la iska kala dareerayo horta markii saa fadhigii loo fadhiistay ayaa tissue ba halkan la soo dhigdhigay qof walba hortiisa tissue baa la yidhi tissue ma garanaysan waxa weeyaan softigan de markaad ama oydo ama duufka la iskaga masaxo ayaa qof walba xabad yar oo xiran ayaa sidaa loogu dhiibay dhabtaa loo saaray gabadh baa qaybinaysa tooy marka ma aha dhow afka iska marisaan baan isleeyahay anigu ayaa la leeyahay marka keega gani waxaan cuntaan afkii xoog ma fahmayo oo iska jajabsi baan aha qoshi haddana dee waxa meesha ka socda waan aqli aan ku fahmo waan leeyahay marka waxa la yiri laba hadaba isula fadhiista laba kala yara durdurka laba iskula fadhiista labadii baan iskula fadhiisan qof walba qofka ama hore ha u yaqaano ama yaanu aqoonin qofun boodhanaya ma isla fadhiisanaa ama gabadh ku go'danaysa ha waad iskala fadhiisanaysaa kuwii aan israacnay qaar kale ba iskala fadhiisteen gabadhaan isba garanahayn baa markaa ila soo igu tiri kaale inagu halkan fadhiisanay marka dumarku waa iska kulli waa sidii wax isgaranaya la isla wada hadlayaa de waa dumar meesha inay ku nafisaan u yimi halkii markaan gabadhii aanan garanayn iskala fadhiistay ee la yara kala durdurkay kuwii aan la socdayna dad kale la fadhiisteen tissue-na naloo qaybiyay unbay gabadhi halkan noo khudbadaysa waxay tiri markaa qof walba gabadh walba culayska ku saaran iyo wixii laabtaada ku jira dadka qaar way garanayaan meesha waxa ka socda oo hore u iman jireen dadka qaar way ku cusub yihiin anigana dee shidan waxa laaliyo waxay tahay warmahayo waa iska imi sheeka jacayl
markaasa waxay tiri qof walooba dee waxa wixii culays kugu hayaa iyo wixii laabtaada ku jira maanta halkaa ku sii daa yaa waxa laala iyo wixii kuugu daran qofka ku hor fadhiya uga sheekee nafis ama oy ama duufa kaa yimaado ama heqheqlee aday kuu taala waa ku kaa nafis qof walooba alla gabadhii baan ku yidhi markaa balstaan dee sheekada u yara fahmo markaa wax culaysahoo dee sharci la-aan ba aniga wax culaysa berigaa i hayay laakiin wax culaysahoo kale oo nafsiyan i hayay iyo dee cidladaa aan ku noolaa laakiin wax kale oo i hayay markaa iminka dee balaayo ah may jirin markaa waxaan sirbal gabadhan ha kaaga horreyso intaas ayada dee balaayooyin ku reeran yihiin iska nafiste waana ka wuri bal adigu bilow dabadeetana maanaa bilaaba mise adigaba igu tiri oo igu ixtiraamaysa markaan waxaan ku ihi adigu bilow markaasaa gabadhii baaba halkan bilowday bismillaahi araxmaan raxiim waxala wixii caloosheeda ku jirtay aysaa u sii daysay dadku qofka intuu sheekaynaya maaragtay maaha inaad ka jeesato waa inaad indhaha sidaa ula qiirooto ood indhaha siiso maaha khasab inaad la oydo laakiin waa inaad indhaha siiso dee qof dhagaysanayo dhagihiisu furan yihiin aad ahaato fahan amaha fahmi waa aniga indhihii ku dhaygagiyey kelmadaha qaar maba garanaya waxay uga jeedo qorshii indhaha uun gabadha la raacraac iyaduba mayadaa rabta in la fahmo waxay rabtaa un inay hadashe naa markay gabadhu ooyeysay duufka iska yara biinaysa unbaan hareeraha saa yara eegaa bal kuwii kalena inay ooyayaan iyo in kale gabadhibaa waxaan ku yidhi dumarkiiba heqeeq qolkii fadhigan islahaa keeg baa lagu cunayaayo shaax baa la isla dhacayaa iyo kafay wuxuu isu bedelay qol oohineed qiiq wiqiiq heqeeq tata kale laabta gelinaysa ta waxaan ku yidhi lehe aamu ta tishiyuga u dhiibaysa ta waxaan ku yidhi garabka u salaaxaysa halkaasaa waxaan ku yidhi oohinta naanaga caqaawismanay halkaasaa oohin laysku daray heq anigoo yaaban ayaan isiri de haddaba tole halkaad ka bilowdaa ila waa inaad wax sheegta waa aniga gabadhii de iskaga yara qiiraysiiya aniguna waa aniga idha alla keligay baan halkan ku noolahay dee reerkaygina ilama joogaan lalalala ilaan qof dhano maanta oo dhaqiiqda hayay maxay hayday ma odhan kari sida anigu wax dhibaatay ma hayaane haddaba waxa ka sheekee ma garanaya aniga dee culayskaygu weyn waa inaan keliya halkan ku noolo reerkayga u xiisay oo sidaa walaalahay waxaasaan iska yara dhuray dee oo ma oohin baa iga imanaysa afrikaan qalalay baan ahay oo waxaan ku yidhi jixaan jixdaayey halkayga adagaysoota arrimahaasoo kale dee horta inaga oohintu inta badan inagama timaado waxaana ka timaada qofku markuu qalbiga ka ooyayay ee hawl wax culay saaran yahay aayar oohintu iskama imanayso dee waan iska yara qiiraysiiyey uun yaa markaa jarmalka laftirkiisa sheekada waniga idinka sheekay haddaanad gidaar walba kasoo go-in waddanka aad maaragtay joogto lama qabsanaysid waniga markaa iminka waxaan uga dan leeyahay hablaha maygaga qaata ee caaya maytida caaya ee iyagu isshaqsi caaya ee ubadkee reer caaya oo na meelahaasoo kalea jire taga meelahaasoo kale oo kusoo nafisa cid idin tilmaanto waaye maysaane